2012 waxay ahayd sanad guul weyn u ah dalka Soomaaliya iyadoo laga gudbay xilligii ku meel gaarnimada loona gudbay dawlad rasmi ah. dabcan waxa sidoo kale sanadkaas lagu xasuustaa markii ugu horeysay ebed taariikhda Soomaaliya wasiir ay ka noqoto haweeney isla markaana wasiirka amuuraha dibadda oo tan iyo markii xorriyadda la qaatay aynan fursad u helin qof dumar ah. waxa halkan ila fadhida Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo iyadu ah ra'iisul wasaare ku xigeen isla markaana ah wasiiradda amuuraha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. ku mahadsantahay waraysigan nasiiso. dabcan Fawziya waxay ka soo jeedaa qoys ka soo shaqeeyay arrimaha diblomaasiyadda gaar ahaan wasaaradda iminka loo dhiibay iyada qudheedana waa ay ka soo shaqeysay. Fawziya waxaan jeclahay inaan marka hore aad warbixin kooban aad naga siiso qaabka wasaaradda arrimaha dibadda ee aan ku meel gaarka ahayn u shaqeyso. baafa waad mahadsantahay horta aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa fursadan. wasaaradda arrimaha dibadda 20 sanadood ee tagay waxay hoos tagtay dawlado ahaa ku meel gaar marna waaba dawladaba ma jirno burbur iyo dagaal baa socday hase yeeshee iminka waa dawlad rasmi ah. waxay kaga duwan tahay dawladihii kale wasaaradihii hore waxay gashaa ama heshiisyada saxiixda waxa weeye waa sharci tallaabooyinka qaadana waa rasmi. waxa ay kaga duwan tahay iyadoo hadda anagu waxay kaga duwanaanaysaa iyadoo hadda dibaqabayn weyn ku sameynayno gudo iyo dabadba waxna laga qabanayo safaaradihii muddada burbursanaa qaar badan dhulalkii aynu ku lahayn ama xafiisyadii ama guryaha aynu ku lahayn dabadda way dumeen qaarna burbur bay ku dhow yihiin. marka waxay kaga duwanaan doontaa waxaas oo dhan bay dib u soo celinaysaa tayadii iyo magacii iyo wajigii Soomaaliyeed ee quruxda badan ee aad iyo aad loogu hanweynaan jiray bay soo celin doontaa. arintii xiriirka caalamiga ah adigu aad mas'uulka ka ahayd dabcan waad bilowday geeska Afrika ayaad wadamo kamid ah tagtay dalkii ugu horeeyay reer galbeed ayaa halkan lagu tilmaamay iyadoo aan ogsoonahay inaad u socoto dalka Talyaaniga. William Hague ayaad la kulantay maxaa ugu muhiimsan oo la taaban karo aad isku soo qaadeen arrimaha Soomaaliya. horta William Hague casuumadan isaga isoo fidiyay markan Djibouti joogo ila soo hadlay oo uu afkiisa igu casuumay dadana warqadii bay soo direen waxaana sababta keenay aad bay u xiiseynayaan dawladdan Soomaaliya maanta waa Soomaaliya cusub adduunka oo dhan xiiseynayo aad baa loogu hanweyn yahay. wuxuu kamid ahaa taladii isaga iyo ra'iisul wasaaruhu shirki weynaa ee Soomaaliya loo qabtay 2010 wuxuu ahaa dadkii ka ahaa forefront ama hormoodka ka ahaa ra'yiga waxa keenay prime ministerka laakiin isna hawsha wax qayb weyn buu ka qaatay. imikana fikradda in shir kale oo weyn la qabto isaga ka dambeeyay waxaanu ku heshiinay waxyaalihii shirka laga hadli lahaa waxa kale oo ka wada hadalay in safaaradihii la isdhaafsado inagu weyn oo reer dhul baynu siinay oo toodi waaba dhisayaan. waxaanu ka wada hadalnay sidii ciidamada iyo dhaqaalaha iyo wadanka tababaro badan loogu sameyn lahaa guud ahaan sidii Soomaaliya loo kicin lahaa. shirkaasna wuxuu noqonayaa shir caalamka la tuso Soomaaliyada cusub ee rasmiga ah iyo sidii taakula loogu heli lahaa. shirkan la qorsheenay in London lagu qabto wuxuu kaga duwanaan karaa kii February ee sanadkii 2011 halkan lagu qabtay ee dawladda ku meel gaarka iyo maamulada ka jira dalka Soomaaliya bay ka soo qayb galeen. waa dawlad rasmi ah halkaas ku kala duwan dawladda kale imaan doonta mise maamuladana imaan doonta wali ajandihii lama qorin wali lama qorsheynin taa hadda ma horboodi karo laakiin dawladdan waa dawlad rasmi oo masasha gobolada oo dhan. Fawziya waxaan la soconaa Soomaaliya markii ay burburtay waxa sidoo kale la burburay hantidii iyo sharaftii ay dunida ku lahayd. waxaan la soconaa safaarado badan oo Soomaaliya oo qiimo ku lahaa dalka dibadiisa ay iminka ay burbursan yihiin ama qaarkoodba la taaban karo inay wax qabad fiican ay lahayn. arrintan dabcan wasaaradda ay hoos imaanaysaa. tusaale haddii aan u soo qaato safaaradda Kenya oo kale Soomaalida ugu badan qaxooti waxay ku noolyihiin dalka Kenya. waxaanu maqalnaa cabasho aad u fara badan ama ha noqdaan kuwa degan Nairobi ama ha noqdaan kuwa xirooyinka qaxootiga ku jira. safiirka marka halkaasi jooga marka ma wuxuu uu qabtaa oo kaliya in dawladda iyo idinka marka dhimaanaysan in soo xiriiriyo mise wuxuu mathalaa shacabka ku nool ee dalka Kenya oo kale tusaaladan u soo qaato. safiirku sidiisaba shaqada safiirku waxa weeye ka koobaad waa inuu cilaaqaadka labada dal oo wanaajiyo oo isu keeno oo ka dhex shaqeeyo waa manduub madaxweynuhu dirtay oo dalka u dirtay. ta kale qabtaana waxa weeye inay shacbiga halka degan ee jaaliyada halka degan ay danahooda ka shaqeeyaan oo ka caawiyaan. Kenya waa meel ka duwan dalalka kale
waa meel Soomaali qaxootiga ugu badan 600 oo kun baa dhadhaaf jooga waxa kaloo jooga ganacsadayaasha ugu badan geeska ilaa Afrikaba ee Soomaaliyeed ama adduunkaba marka waa meel complexa safaaraduna waa safaarad Soomaaliyeed oo tayo iyo dawladii oo wali taal daran masasha marka kulli safiirku wuxuu xoog buu shaqeeyaa waana ku dadaalaa meeshii dad baa ku xidhan jeelasha xariyaha dad badan baa dhibaataysan marka safiirku wuxuu qabtaa shaqo qayr caadi ah oo fara badan oo iyadoon awoodi jirin oo ma garanaysaa hadad Kenya soo qaaday hadii meelaha kale aad soo qaadayna waxyaalaha si dhaxgalo imika waxa la maqlaa dalalka ay kamid tahay Mozambique Zambia oo kale Soomaaliya ugu dhibaateeyay South Africa iska badaa dabcan waa meel sida inuu ogsoonahay Soomaalidu ay dhibaato weyn ay ku qabto xabsiyada Tanzania Soomaaliya badan ayaa ku xiran sida la sheego waa maxay marka qorshaha u degsan wasaaradda arrimaha dibadda ee ku aadan diblomaasiyiinta aad soo magacaawdeen amba adiga ay ka horeeyeen waxa dhici karta qaar badan oo shaqo haynin inay magacaawayeen imika oo haddana aanay waxba ay u qaban dawladda iyo dadka ma hadda waxa jira guddi baa loo saaray 15 safiir oo khubaro waaweyn oo guddi ka talinaysa sidii wasaaradda wax looga qaban lahaa wali reportkii ma soo bixin laakiin talooyin fara badan bay ka bixiyeen in anaga ballan qaad waxa naga aynan tayadii safaaradaha iyo wajigii wasaaradda aan wax weyn ka bedelo safaaradahana aanay ahaanin kuwii lagu yaqaanay dhibaatada iyo dayaca iyo burburka ay noqdaan safaarado qurux badan oo Soomaali masali kara magacana kor u qaadi kara marka anaga qorshahaas noo socda insha Allah sanadkan dhaxaadkiisana maxay haytay objective-kayga ama maxay haytay bartilmaameedii aanu dhiganay waanu gaadhaynaa Soomaaliya markii dhibaatada ka dhacday dad badan ayaa qaxay dalalkii u qaxeen qaarkood hadii aan taabto dalalka bariga dhexe oo kale Shaam dhulka la yiraahdo Syria dhibaato weyn ayaa ka jirta Soomaali badan oo qaxootin halkaas way ku nool yihiin dadka Syriyaanka ah markii ay qaxeen xerooyin qaxootiga waxa lagu sameeyay xuduudaha Turkiga iyo Urdun Soomaalida soo qaxdeen halkaas ayaa lagu celiyay iyagoo la midabta kooraya dabcan sida aanu wararku aanu maqalnaa dadka Syriyaanka ayaa qaxootiga la qaataa maraan la xiriiray Damashq dabcan waxaan wareystay Soomaali halkaas ku nool waxaan ii sheegeen inaysan wadankana ka bixi karin qaxootina aysan gali karin waa maxay marka ajandaha idin degsan tusaale Suuriya oo dhibaato weyn ka taagan ilaan dad walba shacabkoodu way kala soo baxeen والله صعنا سوريا والله صعنا عند بدن الحرحراي sidoo kale Greek ka soo qabo Mozambique dalal badan oo caalamkaas ay dadkii ku dayacan dayacaasna waa kii dalka haystay dadka madaafiicda ku daadanaysa dhimanayay un iyaguna dhibaatada xanuunkaas uma iyaguna dhankaas ay ka galeen qorshaha dhoo yaala waxa weeye dhammaan dhulka in wax laga qabto in marka aan cagaha dhigano imika aan qorshahan wadna ee koobaad ee wasaaradda ka shaqaynteeda aanu dadka wax ka qaban lahaa aanu dalalka u kala diro oo aanu marka meel la dhaafaya ma jirto haday Libya tahay haday Mozambique tahay haday South Africa tahay haday Syria tahay ay haday xitaa dalalka fogfog ilaa Mareykan ay tahay mid walba waa la xiriirinaa mid walbana inta badan waa ognahay arinta safarada halkaas aan ugu harmay أنا سويت دنك السياسة دام علاقات كألا ليدين دلالك عالم كسيدة دلالك جيسك أفريقيا ندرس كنا طبعا وحنا نلصق عنا عندما كينيا يكون إثيوبيا إن دلالك السوق قالين سيشرع الدراء يوانا كيسن قرار كسوق بحقرة مدو أما مدو أفريقيا انتبه وحنا هذا جندها يكسوق قالين يجوا رات راعي حق جريال أي كتل مامين إنه يكونوا لين دلالك الصومالية أم لبعتك وهي دلالك هذا taasi ka siko arinta way si balaaratay oo wili ciidamadooda kama aysan qaadan oo way ku sii balaarteen koonfurta Soomaaliya iyo waliba bartamaha Soomaaliya marka waxa la oran karaa xaq dhaqaale ay rabaan inay ku kobacsadaan dalalkooda mise xaq dhul durugsi oo ay rabaan inay isku balaariyaan dalka Soomaaliya maxaa marka idin qorsheysan xiriirka labadan dal ee ciidamadooda ay joogaan dalka Soomaaliya halka hadaan ku saxo baafo labada dalba annaga Soomaali baa ayaa ogolaatay inay soo galaan Ethiopia kama mid aha igaad dadkay soo doortay laakiin Kenya waa kamid Kenya waa dalalka ay kamid yihiin Djibouti bay kamid tahay Uganda iyo maya Uganda Djibouti Kenya iyo Burundi afarta dal iyo Sierra Leone soo socota iyagu waxay ku yimaadeen mandate oo ay dawladda Soomaaliya u sameeyay kurra ma waxa jiray heshiis lagu gaaray markii la doonayay loo baahday garabkooda in dhulka laga saaro dagaaladu ka socday dadkan dawladda ka soo horjeeday
in markaa ay gacan naga siiyaan. Marka horta mandate bay ku joogaan. Mandate-ka ay ku joogaanna waxa weeye muddadii ay Soomaalida ciidankeeda ay intay kor u qaadayso inay gacanina siiyaan. Waana la wada qorshihii ciidanka lagu tayeyn lahaa. Marka ciidanku soo gaaraana iyagu way baxayaan. Ethiopia iyadu kuma joogto IGAD mandate-keeda, waxay ku joogtaa ogolaansho inagu aynu ogolaanay dhulka weyn ee faraha badan ee wali ciidankii awood lahayn inay gacan naga siiso. Waana u diyaar anytime la yiraahdo baxa way baxayaan. Waa nagi soo maray dowladda Ethiopia, laakiin anagu waa nagi tagnaanigii madaxweynaha Ethiopia heshiis badan baan soo wada galay. Raalli baa lagu yahay ciidankooda jooga, waana baxayaan maalinta aynu nidhaahno baxa. laakiin saaxiibtinimo iyo waxtar iyo walaalnimo inagula joogaan. Ethiopia hore ma aha ee cadawga loo haystay ee laga shakisanaa. waata haddii halkaas ka dhaxgal goormee laga yaabo inaad ka maarantaan marka ciidamo shisheeye ee dalka jooga? Waxay ku xidhan tahay cunaqabatayn baa saaran inaga wadankeena hubka ah. cunaqabatayntii baanu hadda ku jiraa campaign-kii dowladda Security Council-ka inay naga qaadaan. caadina looma qaadi karo, ma sahlana, wax sahlan maaha. Imka way jiraan waxyaalo ay fasfasaxaan. Waxa weeye in dowladda centralka ah waxa laga baqanayaa in cid walba hubka soo qaadato marka dal lagu fasaxo. Cid walba waa soo galaysaa. Marka waa in dowladda dhexe uun looga qaadaa. Inta laga qaadayana waxay ogol yihiin in la weydiisto kol wixii baahidu haday tahay baabuur yar haday tahay maxay haytay uniform haday tahay waxyaalaha qalabka u baahan yihiin ciidankeena. marka imika lama oran karo waqtigaas ay baxayaan taa marka la qaado ee ciidankeena training dalal badan bay naga caawinayaan ciidanka oo training soo saxeexay oo ogol inay wax nala qabtaan. dalal badanna way soo socdaan. marka mana badna inagu wadan badan dad badan ba manahin inagu wada trainer baynu nahay ciidankaynu u baahannahay 20 kama badna. markaynu inta la train gareeyo automatically qoladana way baxayaan. ciidamo badan oo Soomaaliya ayaa dalalka dariska tababaro lagu soo siiyay dibna ugu soo laabtay Soomaaliya iyagoo la filayay marka inay amaanka wadanka guud ahaan ay sugaan wali arintaas ma suurtagelin. waxaa jira hadda cutubyo ciidamada dowladda federaalka kamid ah oo la geeyay Turkiya oo halkaas lagu soo tababaray. inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku shaqo leedahay haddana lagama maarmo wasaaradda mar haddii arrintu ay isbedesho oo dalka dibadiisa wax ka dhacay tahay dabcan adigu involvement ama way ku qusaysaa. ciidamada Turkiya lagu soo tababaray maxaa loo jeedaa? inay su'aasha aad weydiinayso ka jawaabaan inay qabtaan meelihii halboolayaashii dalka inay inagu isxukuno ciidankeenu dalkeena ama xeeb ha noqoto ama gudaha noqoto ilaaliyo weeye. marka waxa loo tababarayaa inay dalkii mas'uuliyadiisa ay la wareegaan. marka cutubyo badan hore loo soo train gareeyay imikana waa sida aad u sheegtay Turkiga la geeyay in badan oo kalena waa la diri doonaa qaar Uganda lagu tababaraa. marka kulligood waxa loo diyaarinayaa inay bedelaan ciidamada Amisom ee hadda jooga dalka oo inaga caawiyay dhiig badan bay ku daadiyeen dhibaato badan baa ka gaadhay dalalkaas mahad badanna waa loo hayaa afarta dal. way wada hadalkii Somaliland iyo Soomaaliya dabcan dowladda federaalka ee hadda jirta waxay sheegtay inay sii wadi doonaan. adiguna wasiiradda arrimaha dibadda ayaa tahay halkee wax diin marayaan maxaad sileedahay marka lagu sii ambaqaadi kara wada hadalkii qabid ah? wada hadaladaas waxay horta bilowdeen intaanaan anagu imanin tan dowladana imanin meelna way isku taageen halkii loogu talagalay inay ku istaagaan. madaxweyne xasan sheekh wuxuu ballan qaaday in wada hadalada wadi doono. sidaan maqlayna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland wuu jooga magaaladan isna wuxuu u sheegay dowladan in ayaguna diyaar u yihiin. marka wada hadaladaas marka la gaaro waqtigii la gaaro ayaa la furi doonaa. wixii ka soo baxaana markaas aynu arki doonaa. ugu dambeyn marka haddii aan ku weydiiyo maadaama dadku si aad dhigto ugu hayaan arinta dhibaatooyinka haysta qurba joogta ama ha noqdaan wadamada dariska ama ha noqdaan wadamada reer galbeedka oo kale xitaa waan ognahay dad badan ayaa ku dhibaataysan. Liibiya waxaa la sheegaa Soomaali beeraha lagu falo xabsiyada ku jiraan. intaas oo dhan waa waxaad u diyaarinaysaan in diblomaasiyiin adag hawshooda ka soo bixi kara u kici kara u kufi kara dadka Soomaaliya iyo cilaaqaadka dawladooda inay soo dhiciyaan. ma ku tala jirtaan marka in sida wasiirada loo soo koobay in safaaradaha la soo koobay? safaaradaha imika reportkii baa soo baxay dhawaan. safaaradaha inta aan safaarada baa jira shaqaynayna fara badan oo jirin oo magacuun ka jiray. marka waxa lagu tala jiraa in la kala safeeyo la eego wixii tayo leh ee ma garanaysaa loo baahan yahay in ma garanaysaa la hawlgeliyo
marka safaaraduhu waa wejiga wadanka safaaraduhu iyagaa dhaqaalaha keena safaaraduhu iyagaa cilaaqaadka caalamka hagaajiya marka waxa weeye lagama maarmo xataa haddii la yareeyo waxay noqonaysaa dib loo badiyo hadhowto oo si caalamka oo dhan loo gaadho laakiin ilaa hadda waxaa loola jeeda marka meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin in kuwa safaaradaha in meelahaasi lagu xoojiyo may sidaa ma aha waxa weeye muhiim meelaha security council ka kale dalalka ah dalka Yemen waa safaarad aad loogu baahan yahay qaxooti badan baa jooga qunsuliyad bay haddana leedahay dadka jooga qaxootiga Kenya in yar bay ka yaryihiin malaha waana aad bay u dhibaataysay 2009 ayaan booqday dalka Yemen qunsulka cadan ayaan u tagay dabcan wuxuu igeeyay xirada qaxootiga ugu badan Soomaaliya 14,000 oo qaxooti aan halkaas ku ururiyay waxaana la sheegay in qunsulkaasi oo kale aad ugu dadaalo Soomaalida eelboorada ee meel walba kala hadlo laakiin dawladihii ku meel gaarka 12 sano ee jiray mas'uuliyiintooda dabcan Yemen way booqdeen ama ha ku ekaadaan Sanca oo kale ma jirin mas'uul ka socdo dawladahaasi oo booqdo xirada qaxootiga ee Soomaalida ay ku noolyihiin sidoo kale xirada Dadaab ee 500,000 ee ku jirta qaxootiga Kenya ku taala iyana ma jirin maxaa marka hortaagan in mas'uuliyiintu ay booqdaan meelaha qaxootiga ku jira wax hortaagan ma jiraan Dadaab oo kale Xasan Sheekh madaxweynuhu aad u doonayeen booqdo booqashadii maalintii dhaweyd laakiin way suuragal weyday iyadoo maaragtay meesha ay dawladdu ku talisay inaan imika la booqanin Yemen wasiir ku-xigeenkii wasiirada cusub ee imika wasiir ku-xigeenada imika la magacaabay baa tagaysa waxay soo booqanaysaa meesha hanti baa hataa ku dayacan maraakiibtii Soomaaliyeed baa degaysa imika oo qayladaan laga soo diray guryihii safaaradda maraakiibtii oo muddo taagnayd 12 sanadooda badda oo imka daldalooshantay qaxootiga arrimahaas oo dhan bay hadda u tagaysaa marka dawladani ma aha dawlad fadhida waa soconaa waa wareegaynaa wax badanna waa nusleenahay arinta Jarmalka markaan u soo laabto Somali Airline iyada qudheeda dawladda Jarmalka sidoo ogsooneen shirkadda Lufthansa ayaa markii hore sameysay marka ayadana ma lagu tala jiraa si maadaama Soomaaliya wax badan ay ka hormarsantahay Afrikada kale iyadoo burbursan xagga isgaarsiinta xagga warbaahinta oo kale xagga ganacsiga intaba arinta marka Somali Airline iyadana taladeeda ma lagu jiraa hadday tahay Somali Airline hadday tahay maraakiibta hadday tahay guryaha maqan intaba waxaanu ka sheegnay aniga iyo ra'iisul wasaaruhu waxaanu bixinay press conference mar 3 week laga joogo golaha wasiiradana waanu marinay waxaanu ka ansixinay in hantida si degdeg looga daba tago aad iyo aad وزير يوسف حاجي آدم رئيس الوزراء كحيي كدولة فدرال كالصومالية إسلام كانه وزير أمورها دبدا دولة فدرال كالصومالية أو رئيس جارسي سي يونيفرسال تي في.